sheeko aan hore ii soo martay oo cajiib ahayd oo annaka marka sheekh waxaan ula tegay sheekadii sheekh Cabdulaziz Ali Sheikh waa muftiga magaalada Sacuudi wadanka Sacuudiga ee mufti caam sheekh markan qisadii u sheegay wahadli kari way wuxuu ku waashay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah allahumma la tuftinna allahumma la tuftinna sheekadu maxay ahayd sheekadu waxay ahayd annakoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabada soo dhigtay mafaatinkii Ilaahay siiyay oo dhan bay dabada soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii mar waxay tiraahdaa that is beautiful wa aad bay u qurux badantay Ilaahay baan ka hadlaa subhanahu wa ta'ala tawxiidka inuu Ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu Ilaahay halka inala joogin inaanu Ilaahay inagu dhex jirin inaanu Ilaahay inaan lahayn inaanu Ilaahay reer lahayn inaanu Ilaahay way ka mabsuuday waxay tiraahdaa is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi Muhammad iyo icjaaskiisi iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadanka loo sameeyo iyo maraaxil ku waxa dhammaan u sheegay aad bay ugu mabsuuday marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaad arkaysid Ilaahay wuxuu qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay Ilaahay dambiga may dhaafaya Ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa talab ma eegta mise waa dambi illa ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha imika ma kor baad u eegta oo ba wajigaad aragta mise waa dambi miyaad ka jeesata maxaad u sharaxda haddii ay muslimto xagaan geeya ma xijaab aan u xidhay dumarkaan u geeya kowdha mise waxaan ilaahadaa khamiis oo xidho raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan Ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo haddaan idinku idhaahdo waa dumarkii nin baa la tukanaya way dilaysaa haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku ori marka waa arrin weyn waa dambi Ilaahay laga galay subhanahu wa ta'ala khalqigi Ilaahay ku siiyay subhanahu nin buu ka dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii Ilaahay ku siiyay aad zuulid ka goysid inaad meel kale waxyaabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu talinay baad dhex gashay bal u kaadi Ilaahay wuxuu ii hawl yareeyay inaan Sacuudiga tago marka waxaan la kulmay Abdullah al-Huqayl wadaad la yiraahdo aan waa sheekh iige muftigii uu geeyay مفتي بان كوريا فضيلة الشيخ
حالد سدا يسدا يسدا ساجرتا فما الحكم وذاك انت نكفي لي انه فتوى السيو وضوخي مركاسون مرة رد الله عليه قال أيعصي الله بهذه الطريقة ومساسة إلى هدم الله وقلها إنا لله